Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan jeclaan lahaa insha Allah dhammaantiin inaan idinkala hadlo kalsoonida. Waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo cimri dheer Ilaahay idinkaga rajeynayaa. Meel kastoo aad joogtaan maalin ama habeen wanaagsan waxay idin tahayba. Sideedaba kalsoonida ma ahan wax la baran karo sida xeerarka gaarka ah ee loo barta ama aqoonta goonida ah. Kalsoonidu waa wax oo ah xaalad maskaxeed, xaaladda maskaxdaada ku jirto, waa fikirka wanaagsan, waa tababar aqooneed iyo la hadlidda dadka kale si confident ah adiga oo og waxa aad ka hadlaysid. Dhammaan siyaabaha waxtarka leh oo lagu caawiyo hogaaminta jirkaaga, kalsoonida jirkaaga, caqiidada, heerarka kalsoonida, aqoontaada, sida Ilaahay kuu abuuray, waxaad taqaanid, sida u eg tahay, waxaa baratay, waxaasoo dhan waa state of mind, xaaladaada maskaxdaada waxay ku jirto waaye. Kalsoonida waxay ka timaadaa dareenkaaga. Haddii dareenkaaga uu ma aragtay aad naxsan tahay ama aad isku kalsooneyn gudahaaga, jirkaaga laga arkaa inaad ahayn qof isku kalsoon. Laakiin haddii aad dareemaysid wax fiican oo positive ah, dadka banaanka ka arkayaan. Aqbalidda jirkaaga oo kale iyo maskaxida in aad is aqbashid waxa ka hor dareenkaaga in aqbalsan tahay waxa adiga kugu saabsan aqbalsan tahay aad aaminsan tahayna. Kalsoonida waa inaad aaminsan tahay awoodaha Alle ku siiyay adiga oon si istustus ah dadka isku tusayn awood gooni ah haduu Ilaahay kuu siiyay oodna ku mahadcelisaa mar walbo iyo meel walbo aad joogtid. Kalsoonidu waa xirfad iyo khibrad adiga kuu qaas ah. Kalsoonidu waa sifo dadku wada jecel yahay inay wada yeeshaan dhammaantood, balse ma wada ogo way wada leeyihiin. Laakiin waxaa og qofkii ka shaqaysiya ee ka soo saara jirkiisa ee kor u sii qaado si uu uga faa'iideysto. Waxa laga yaabaa dadkaas inay u yeeshaan waxaas gooni ama qaas. Waayo way ka shaqaysiyeen, way ogaadeen waxa kaliya oo Ilaahay ku siiyay inay yihiin waxyaabaha oo Ilaahay ku siiyay inay ka mid yihiin. Ilaa adiga isku noqotid oo isku mashquushid adiga ma ogaan kartid inaad leedahay in kaleeto. Marka waa mahadsantihiin. Thank you for listening. Insha Allah waa inoo mar kale. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.